waxaa gaadhay degmada Taleex ee gobolka Sool wafdi uu hogaaminayo garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ka soo kicitimay degmada Godaalo ee gobolka Sool. Wafdigan garaadka waxaa ku weheliyay qaar ka mid odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Maxamuud Cabdi Ciise iyo sidoo kale odayaal kale oo waxgarada. wafdigan garaadka ayaa degmada Taleex u tagay nabadaynta beelaha walaalaha ah ee wada deegaankaasi oo hore ay u dhextaalay xiisada colaadeed oo salka ku haya aanooyin qabiil. garaadka oo waraysi gaar ah siinayay TV-ga Kalsan ayaa sheegay inay arrimahaasi u tageen degmada Taleex isla markaana ay la kulmeen labada beelood ee walaalaha ee colaadu ay dhex taalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka ugu horeysa waan salaamayaa baada warbaahinta sida la socotaan maanta waqti fara badan oo aan hogaaminay laba gaari oo dowladda Godaalo ka soo baxay oo magaalada Taleex ku shaqaaqay ka dhacay oo hore u taagnaa hadeerna wax ka bilowdeen ayaan u nimid waana la kulanay labadii dhinacba ilaahayna waa nagu muday inaan horta oo badan sameeyo runtii xaaladdu ma fiicna dadkan qabaayilka xaaladahoodu marka ay galaan oo wax kala galaan aad iyo aad u adkaadaan arrintana wayna ka digsantahay waa niman muddo soo baxnay oo tarkiibkeedu socday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kala badbaadiyo waqtiga rabadaan baa lagu jiraa waana ugu sheegnay in waqti xaaladda adag ay waqti rabadaan tahay ilaahayna waan baryaynaa inuu nala qabto hawshaas waqtiga iyo xilligaas barakaysan aawadeed dad badan oo kale oo aroori waa laga yimid hawsha inay wax ka qabtaan oo dadka ay maantareeraad ka taaganna waa joogaan awalna magaalada wadad waajiyeen oo ku jiray oo maanta dadka kale oo ehelka u ahna way jireen waxaas ay soo ku dhamaadaan waa filaynaa hadda ka horna si fiican looma gelin gacan loo galo oo loo diyaar garoobo oo wax la kala yiraahdo oo meel lagaga soo haro ayaan maaragtay rajeynaa wadnaa arrimahaasaan u nimi meesha la yidhahdo Taleex dadweynuhu ay khusayso arrintaasi oo meel kasta adduunka ka jooga gudaha dibadda meel kasta jooga cid kasta ha ku jireen maamul ha ku jireen meel kale ha joogen dibadaha ha jireen waxaanu ka codsanaynaa inay arrinta iyada qaboojinteeda iyo wanaajinteeda nagala qayb galaan qof kasta wuu taabanaysaa waa dad walaala ah oo waxba aan kala ahayn oo isku nool ah oo ilaahay meesha ku wada beeray wada degan sinaba absolute looma dhegeysan karo maanta ama lama aqbali karo sida u socdaan iyo in dibadda joogta ahaado wax la aqbali karo ma aha inay nagala shaqeeyaan ayaan sharciyeynayaa dib kasta oo ay khusayso wixii tabara iyo wixii tala iyo wixii maaragtay afkaar ah in nagala shaqeeyo loo badbaadiyo dadka walaalaha oo shaytaan baan oran karnaa waxaan isu dirayaan waa shaytaan baan oran karnaa marka in arrintaa la qaboojiyo ayaan ku boorinaynaa saxaafadan uga faa'iidaysanaynaa kulley dadku waxay qof kasta qofku ku xiran yahay dadka dibadaha ay badanaa ku xiran yihiin wararkaa la soo siinayaa wanaag ilaahay dadkiisa loo galo oo wanaagga laga maro qof kasta qof la hadlaa xagga wanaagga ka maro oo xagga maaragtay alla kacabsiga ka maro oo wanaagga xajiirka kala yiraahdo dadku waxbadan baa gelaya garaad waxaan jeclahay inaan arrintaas su'aal ka weydiino maxaa dib u soo cusboonaysiiyay xiisadahan baa u malaynaysaa hadda hore waa ogeyn adiga iyo guddi aad madax u tahay oo maamulkii Khaatumo intuusan meesha ka bixin arrintan waa la galay meel wanaagsan bay maraysay maxaa hadda dib u kiciyay baa la oran karaa garaad wallahi waa guddiga waa run meel fiican baan gaarsiinay baan maaragtay ay labada qolo waxooyin baan u qabanay waxbaa ka soo dhex galay sida la socoto magaalada baa la qabsaday dadkii way ka kala tagtageen kulli dad magaca Khaatumo lagu qabtayna way ahaayeen dadkii way ka kala tagtageen oo maaragtay amaqdo meel ku aaday oo meesha waa lagu kala qabanada runtii markii dadkii guddiga aan u qabanayna way tageen dad lagu kalsoon yahay bay ahaayeen waxaan isku dayaynaa iyaga laftooda hadda inaan dib u soo ururino maadaama waxu bilownaayeen oo labada qolaba ay sheegareeyeen dhulbaantana ay ka soonaayeen oo dhulbaanto dadka ka soonaayeen dhulbaanka iyaguna labada qoloba kalsooni bay siiyeen inay hawsha galaan
maarmaan waxa uu soo codsanayay waxa weeye meeshii boobtii oo aan la dhayn oo gaarsiistaagana baan naga gaarin soo codsanayay ma la odhan karaa garaad arrintan waxaa inay maaragtay sii qaraxdo ka shaqaynaya maamulkan Hargeysa kasoo dulay oo meesha qabsaday dhawaan wallahi waqti labadan baa lagu jiraa oo anagu aan soo marnahay dadkuna ma samayn karno dadka ma sheegi karno waxaan hadeer aan inaan iska saarno inaan cidaas sidayda oo aan cadayn karinna waa waxay keenaysaa maaragtay inaan aan dad ku dhacno marka ma cadayn karno kiiskani hore u saxnaa oo u soconayay oo hadeerna socday oo soconayo weey aad baa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ku sugan degmada Taleex ee gobolka Sool aad baan ku salaamayaa garaad salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Cabdixakiin Siciid Maxamed TV-ga caalamiga Kalsan Nairobi